saddex cumar waa saddex qabiil oo waaweyn oo si weyn geyiga Soomaalida looga yaqaan qabiilka reer Ciise qabiilka Eylo qabiilka reer Maadle waa saddex qabiil oo waaweyn oo kamid ah qabiilada Soomaaliya jooga lixdankii Soomaalida koonfur iyo waqooyi haday midoobeen 65 ayaga midoobay maalmahan waxa dhagay ku soo dhacay waxyaabo dhagaha aan jeclaysan arrimahaasoo ku qotoma beesha reer Ciise amaba si kala hadaan u dhaho beesha saddex cumar waxa waaye walaalayaal wixii aan gafana iga raali ahaada waa in ma aragtay garasho xumo ugi qofaan la rabo xumaan ma jiro beesha reer Ciise si gaar ah inuu la hadla rabaa walaalkay Maxamed Xaaji Nuur Cumar Daawud ayaa waxaan arkay asigoo leh waxaan raali gelin ka bixinaa saddex cumar waa ma aragtay waa xisbi walaal wali waa ka qaldan tahay haka bixin raali gelin saddex cumar waa xisbi saddex cumar waa urur saddex cumar waa kudlad lagu heshiiyay waxaad raali gelin ka bixisaa ereyga ah saddex cumar ma jirto ereyga qaladka kugu ah lagu haystana waa ereygaas waxaana ka digaa kuwa kalena inaysan ku qaldamin saddex cumar waa saddex qabiil oo waaweyn oo si weyn geyiga Soomaalida looga yaqaan qabiilka reer Ciise qabiilka Eylo qabiilka reer Maadle waa saddex qabiil oo waaweyn oo kamid ah qabiilada Soomaaliya jooga lixdankii Soomaalida koonfur iyo waqooyi haday midoobeen 65 ayaga midoobay oo go'aan qaatay waxa ayaan darra kuwa aan wax baranin inay garteen dadkaasi isku dadka ah hal guri markay oohin ka yeertay guriga kale oohinta ay ka yeereysay inay arkeen ay midnimada sameeyaan kuwii wax bartay baanta ay leeyihiin ma jiraan waa ayaan darra sideeda waaye nimayahow walaalahay ahow reer tolkayow reer Ciisow inaad dhaqanka islaamka ama dhaqanka yani tolnimada aad baratiin waa idin muhiim in maalin kasta la gidgidiyo on tanazul iyo saanyeel la yiraahdo waa khalad reer Ciise waa reer Ciise waxa inaad ka shaqaysiin loo baahan yahay midnimadiisa saddexda qabiil saddex calanay kala leedahay qolo waliba calankeeda inay weynayso waa muhiim waa noo wada muhiim inta kalena ay ku faraxdo aysan ku xumaanin reer Ciise inuu midoobo waa muhiim oday guud waa yeela kariyaa oday guud oo aan loogu yeerin magaca ugaas waa yeela kariyaa dhaqankiisa waa yeela kariyaa markan sidaa idin leeyahay aniga qofna lama dirirsani qofna mucaaradi maayo laakiin waxaan ogahay oon huba oon xaqiijinayaa wax kasta in 10 ka barato loo baahan yahay barnaamijkaasi barnaamij hore lagu heshiiyo 60kii lagu heshiiyo waaye waa barnaamij ay og yihiin hay'adaha Soomaaliya ka jiro ama dawli ha ahaato ama maadi ha ahaato ama diini ha ahaato hatta MGO-yada ay ku og yihiin oo meel maray oo adiga shalay aad meel marsatay waay maanta qorraxsin baadacada naga hayso waxaad ku suntantahay inaad wiliga qolo u raacin inaad nabadda yani jeceshahay aad ku suntantahay awooyaalka ay hayeen haddana anigu waxaan soo jeedinaa nabadda in lagu dadaalo nabadda la adkeeyo sidaasaan anigu soo jeedin lahaa maanta igu qabtay inaan yani meediyahan waco nin iska yani waxaan ku sheegaa hore aan wax u barin iska yaaro reer baadiyana waa ahay wixii qodobka dhacay oo aan sameeyana waxaan yani ka codsanayaa raali gelin
guud ahaan iyo gaar ahaanba aniga nin aqoontiisu ay yani tahay mihi mid saxa marka waa idin mahad celinaa warkayga waxaan rabaa inaan ku soo koobo oo khudbadayda ku soo koobo reer ciisow muslimka aan dariska lanahayna hala nabadgeliyo adinkuna isjeclaada midnimada ku dadaala maamulkaas ama ururkaas mar hore la aas-aasay oo waxaan kuu sheegaa 60kii haddii inaad 10 ka barataan isku daya markee waxa waaye 60kii waqooyiga Soomaaliya koonfurta la midoobay waa baxa hadda hadduu suuragal ah sidee adigu ku suurtagali kartaa dad walaalaha oo isku dhiig iyo dhaqan tihiin oo aad 65tii la midowday inaad kaliya baxdo war waa kudlad anaale waa xisbi waa urur saddex umarow saddex qabiilo oo walaala ah oo aan kala maarmin oo kala hurdin ayaana ku midowday qabiil walibana wuxuu leeyahay meel jirid u ah si aado oo yani u si dambaysa jirto laakiin hiiraan dad saddexdaas degan waa ku midoobeen cid hadda maanta wax ka bedeli kartana aniga inay jirto ilaa ma ahan nin siyaasi aniga howl siyaasadeedna ma aqaano ana dhaqanka si fiican u aqaana siyaasadda ma aqaan hada siyaasad wax uga bedelanaysaan kuwiina siyaasadda ku foogan hada ka bedelan idin malihin hada siyaasad wax ugu helaysiin ama siyaasad laakiin waxaan soo jeedinaa oo amra in laga warwareegto saddex umar ma jirto la dagaal wax kasta isdhaha yani dib male waxaas waa dagaal wala waa dagaal laakiin ma jirto waa caasinimo awowga ha sameeyay saddex umar qolo gooni u lana male saddexda odayaas la samaysatay ayagaana markii waqtigeeda gaartaa dhihi karo nimay waajimaadnay aan yani kala danaysano ayaga dhihi karo inta ka sokaysana waa isku qasban yihiin ciise intaas aan leeyahay